السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان عاو حنوغا هدلايا هدي اللي يراهدو نمانكا walaalahayna oo dhibaatadu soo gaartay oo siyada nin laga xasuuqay gololey daa'uud oo haddii allayra qaraabada ayaan u tacsiihayaa awalan marka ugu horreyso dhibaatadaasoon ka wada naxmay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed oo joogta gobolka banaadir amba gobolka hirshabeelle joogta intaba waa ka naxnay marka waxaana codsahaynaa dowladda haddii la yidhaahdo meesha la yidhaahdo waxuu ahay gololeyda waxaa lagu dilay haddii ala diiq dooraa baabuur ku dardara haddii la yidhahdo isla maalintaasaa baabuurka cidda laheed la ogaadaa marka siyeednin oo daqaatiira oo haddii ala yidhahdo dadka muslimiinta u gargaaraysa dhibkan maanta jirto weliba nimanka la yidhaahdo waxaa waay daqaatiirtu dadka waa ka qaalisan tahay in haddii ala yidhahdo meyd hebel intareer laga wato meeshii meydkooda lasoo keeno meeshii wax dhici kara ma ahan marka waxaan ka codsanayaa dowladda amba hirshabeelle dowladeed ha noqoto amba dowladda dhex ha noqoto ciddii arrintaas ka dambaysa si degdeg la xamaasadaad kacsan waana dejiyowhaynaa bacdamaa imaamka cidda aan ahay oo dhibaato xamaasada kacsan aan dejiyowhayo inaan iskaashanno xamaasadaas la dejiyo oo si degdega inta lagu baaro ciddii arrintaas ka dambaysa lasoo saaro ayaan awalan horta marka dowladda ka codsanayaa cidda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada waxuu ahay inta taliyayaasha ciidamada intaasoo dhanba waa ka codsanaynaa maxaa jiro dhibku hadduu sii fasaso cid jooji karta ma leh dadkaas dilana dhibay ka shaqayhaan moogiya haddii allir nabad ka shaqay maayaan marka codsigaasaan cawada u jeedihayaa dowladda iyo wixii la jiro waxaa dhibaato waa ogtihiin maantii horo dhib badanaa jiri jiro dowladda iyo la iskula diraayo iyo waxuu ahay dadka la hasuuqo jasiiro loo baxsho waa taqaaniin waxaad yeelaysiin dadka shacabka iyo dowladda isku diraayo hanagala qabto waktigan waxaan ku jirnaa wakti kala guura waxaana noo fiican nabad in lagu wada joogo oo nabad meeshi la higsaayo lagu gaaro midda lamaad waxaan leeyahay qolada waxuu ahay joogto ceelasha oo shalay iyo maanta qalalaasuw ka taagan yihiin oo iyakuna qaraabada lamadayda gacmood waaye ninkii gatay iyo ninka deegaan ahay iyo ninka u dhashay intaba waxaan leeyahay arrintaas ha la joojiyo xal waara ha lagu gaaro ha lagu baxo haddii ala yidhahdo maamulada haddii ala yidhaahdo koonfur galbeed iyo kuwa muqdishoba waa dhexdooda haddii ala arrintaas ha fiiriyaano yaan laysku fiirsanin shalana dhibaa dhacay berigana dhibaa dhacay beritiyan dhib kala dhicin iyadana saasaan ku talihayaa waxaan kaloon rabaa haddii ala yidhaahdo baaritaanaa socdaa la yiri laakiin iyaanta waxaa badata baaritaanaan lagu jiraa in inta la yidhahdo wuxuu baaba'aan dadka ehelka ahay waa ii sheegeen waana ii yimideen waana iisoo sheegteen odoogoodii aan ahay baaritaan lagu qanci karo oon laga helino salkiisa la gaaraan dowladda ka codsanayaa idinkana waxaan idiga rabaa ehelkii dadku ka le'day oo tii rabbiyaa ku timid waktigaas ma dhaafeen idinkana dowladda ku kalsoonaada oo suga waktigeeda intay baaritaanka soo caddeeyaan idinkuna dowladduna ha noo dadejiso gabagado waxaan leeyahay ummadda allah isu qaboojiyo meel kastoo dagaal ka socdo soomaaliya meelo badanaa dagaal ka socdaaha ilaahay nabad ha noogu bedelo ilaahay cudurka ha noogu bedelo caafimaad ilaahay aan ka baryaynaa soonka waa noo dhammaaday ee ilaahay idinkiisa kuwii naarta laga xoreeya allah naga dhigo shartiya shaydaanka allah naga xijaabo dalkayna iyo dadkayna barwaaqa allah ka dhigo kuwa isjecel oo haddii nabad ku wada joogo allah naga dhigo ilaahay idinkiisa ummaddu hadday isnacayso khayr male ummad isjecel allah naga dhigo balaayadana allah naga daboolo sharti iyo shaydaankana allah naga xijaabo meel kastoo jiro dibadda iyo gudahana allah na cafiyo addoomanka ilaahay ayaan nahay addoomanka ilaahay cafiyo allah naga dhigo ilaahay idinkiisa kuwa dibadda jirana nabad allah ku nooleeyo kuwa gudaha joogana nabad allah ku nooleeyo dalkee dibaddana diirankii isu soo foorshaan dhahna allah naga dhigo anakoo nabadoo dalkayna ou nabad yahay allah isu kayna keeno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu